midka idin sheeganaya oo halkan joogana gurigii aad ku hoyo laheedeen ayuu miina ku xiray wuxuu burburiyay guriyihiinii wuxuu ku dhuftay baabuur qaraxa wuxuu burburiyay wadooyinkii iyo buundooyinkii qudaarta aad beerihiina ka tabcataan aad ku iibgey laheedeen yaa idin low aan isweydiino halkan waxaad la socotaan dhammaantiin waxaan filayaa dadkiina halkan fadhiya markii halkan nimanka argagixisada cadawga aan ka saaraynay degmada Owdhegle nolol maxaa ka jiray nolol ma ka jirtay adeeg dawladeed ma ka jiriye aan runta isu sheegno inta cadawga ay gacanta ku haayeen caafimaad ma ka jiriye iskuulku ma shaqeynaa iskuul ma ka jiriye xarun dawladeed ma ku teel MCH ma ku yiil inta ay heesteen oo deegaankan ay heesteen waxaan rabaa inaan su'aal idin ka weydiiyo hal qolba Allah ka dhigo wax ay al-shabaab ka dhiseen oo bulshada ay ugu adeegayaan oo nolosha bulshada wax ku taraayo danta caamka wax ka qabanaya ma ii sheegi kartiin fadlan qofka og ha ii sheego cid kugu qabsanaysa ma jirto waad ogtihiin in ka badan 4 jeer ay isku dayeen inay halkan ciidanka dawladda ka saaraan way ku guul dareystaan way ku jabeen hal qof oo noloshiina ka fikiraya ama daawo idin keenay ama cunno idin keenay ama xitaa marxaladda aad ku jirtiin wax idin ka weydiiyay oo idin dhahay marxalad nuucee aad ku nooshiin ma jiriya ya fere war ilaahay baan idin ku dhaariyay qaraxay ku dhufteen dhulkii waxay ku xireen miino meeshii dadku mari lahaayeen ayay godad ka qodeen magaalooyinkii aad ogeedeen oo hadda la soo maray halkaa waxaa ku tiila tuuladii Malable oo aad ogeedeen degmada qayb kamid ah heeday yaa burburiyay yaa hantida dadka masaakiinta ah maxay ka galabsatay yaa daba iyo ku qabteen ee baabi'een Soomaa okay bedelkeeda dawladda aan u soo noqono yes طبعا dawladdu marxalada kala duwan ay ku jirtaa waxay ku jirtaa duruuf adag ay ku jirtaa wax kasta ma qaban karto laakiin waxa raba ciidanka qaranka iyo saaxiibadeena markay halkaan yimideen adeegyo dawladeed ay halkaan ka qabteen Soomahay ya halkaan xarunta degmada laga dhisay halkaan iskuulkaan uma dhisnay iskuulkiya laga dhisay Soomahay halka ayaa laga dhisay MCH kiya laga dhisay Soomahay ya loogu adeegay ya daawada MCH ka tiilaya la siinay degmadan halkaan cidda wax ku baranaysay iyo caruurta mustaqbalkooda lagu dhisayay yay ahaayeen reer Owdhegle ahaayeen Soomaa ya ciidamadii idin yimiday ee halkaan idin yimiday ee idin la joogay gacanna waxay ku difaacayeen cadawga macallimiin ayaga kamidahuna dadka iskuulaadkan dhigayay kamid ahaayeen Soomahay ma jiriye macallin ciidanka kamid ahayo dhigay iskuulkan waxaan rabaa saaxiibadayda qaaliga ah reer Owdheglow argagixisada nimanka iimaan laawayaasha oo aan wax mustaqbal ku lahayn dadka Soomaaliyeed in ay dilaan moogi ay noloshooda baabi'iyaan wax kale ee qorshaha u degsanuna aanay jirin halkan dhulka maysan soo doonan lacag kamaysan soo doonan xoolo kamaysan soo doonan inay idinka qaataan wadankoodii iyo meeshay ka yimideenna waa u dhisanta nabaday heesteen waxbarashay caruurtooda heesteen way soo baxeen waxay halkaan u yimideen adinka mustaqbalkiina sidaad abni ku heli laheedeen iyo sidaad adinka caruurtiina ay wax ku bara laheed way dhimanayaan waxa dhiiga bini'aadanka ka qiimo badan maxay yihiin nafta bini'aadanka waxa ugu weyn oo qof bini'aadanuhu bixiyo Soomaha ya fere xaqiiqadan idin sheega waxay sheeganayaan diin aan lug yar raad ku lahayn nimanka argagixisada waxay ka been sheegeen diintii suubaneed waxaan rabaa sida taliyaha halkan ka hadlay oo idin kala hadlay qarankiina garab istaaga dawladnimadiina garab istaaga ciidanka garab istaaga midna waa idin sheega
halkaan waxaa idinla jooga gabdho iyo wiilal meel kala duwan ka yimid daaway soo qaaday waa caafimaad halkaan ayay waxay kula tacaalaysaa caafimaadka caruurtiina iyo hooyayaashiin iyo aabayaashiin ayay halkaan kula tacaaleen midka idin sheeganaya oo halkaan joogana gurigii aad ku hoyo laheedeen ayuu miina ku xiray wuxuu burburiyay guryihiinii wuxuu ku dhuftay baabuur qaraxa wuxuu burburiyay wadooyinkii iyo buundooyinkii qudaarta aad beerihiina ka tabcataan aad ku iibgey laheedeen yaa idin dhow aan isweydiino yaa maanta idin gargaaraya oo idin dhow yaa idinka naxaya war caafimaad idinma hayaan oo cunno idinma hayaan oo nolol idinma hayaan oo caruurtiina mustaqbal uma hayaan oo ifan xitaa daruufta aad ku jirtaan ma idinla dareemayaan maxay idin yihiin ya waxay burburiyeen guryihiinii waxay burburiyeen buundooyinkii waxay burburiyeen wax kasta oo nolol ah oo deegaankan ka jiro dadka bini'aadanka ku noolaayeen wiilal iyo gabdho tusaalan u soo qaata dhammaan ciidamada halkaan socda wiilal iyo gabdho noocaasa oo wadankoodii oo nabada ka yimiday oo adinka idin damqanaya ee ayagu ilmihii caruurtii gabdhihiinu dhaleen dhabta ku sida ayaa halkaan idinla joogaan yay taa inaad caawisaan waxaan rabaa meel qorraxaad fadhisiin ciidankiina taageera ciidankiina garab istaaga taa ayaa wax idin kari karta saaxiibada nala socda ee qaybahooda kala duwana fadlan garab istaaga waa mahadsantihiin waxaan rabaa nimankaas waa dembiilayaal hooyooyinkooday dileen aabbayaashooday dileen walaalahooday dileen adeeradooday dileen habaryayaashooday dileen cid walbay baabi'iyeen hal su'aal oo kalaan rabaa inaan idin weydiiyo muddo dheer ayaa ciidanka dawladdu halkaan joogan soo maaha yaa waqtigaasay inta joogan soo maaha okay waxaan rabaa hal qof oo adinka idinka mid ah oo beerta oo asagu lahaa ciidanku qaateen ma jiryaa yaa hal qof oo idinka mid ah oo beertiisii ama gurigiisii ciidanku ka qaateen ma jiryaa qof lagu dhibaateeyay oo la dhahay ma tabca kartid beertaada ama ma abuura kartid ama wixii kaaga soo go'ay ma qaada kartid ama wixii kaaga soo go'ay qaybka keen ciidanku qaataan qof la dhahay idinka mid ma tahay yaa qof gurigiisa lagu qabsado iyo loo taga gurigaanan kula leeyahay ama gurigaagan lacagtan ka rabaa la yiri oo ciidanku ay dhahan idinka mid ma tahay qof ciidanka ho lacag idin weydiinaya bashi oo idin dhahaya intaas oo lacag ha la idinka rabaa keena ma aragteen horta ogaada raashinkay cunu lahayn gaarigay u saaran yihiin waxaad ogaataan halkaan waxaan aniga imiday MCH-ka asgarta halkaan deganeeday daawada loo keena inay ayagu isticmaalaan ayagoo inyo soo qaada oo MCH ka geeya caruurta iyo hooyooyinka ugu qaybinayo ku daaweynaya waa daawada ayaga loogu talagalay ogaada damqasho ay idinka damqanayaan idinku daaweynayeen ilaahay baan idinku dhaariyay kuwa gurihiina hoosta ka qoday miinada ku xiraya ayaga ma la isku bedel kara dad isku mid ma yihiin maxay u dhimanayaan feere wiilashaan iyo gabdhaha halkaan aad u jeedaan waxay ka yimideen gobolada dalka oo qaybahooda kala duwan mid inta dhulka raba kuma jiriyo mid lacag idinka qaada kuma jiriyo mid xoolihiina inuu ka heesto ugu talagalay oo waxba idinka qaadanaan kuma jiri waxa ay u dhimanayaan waa in mustaqbalka caruurtiina la dhiso waa inaad nabad heshaan waa inaad nolol ku noolaataan waa inaad beerihiina khayraadkiina aad la soo bixi kartaan ilaahay baan idinku dhaariyay ma waxa sax degmada oo dheegle aan ognahay inay xataa noolay karto 3 milyan oo dad in ka badan khayraadka ka soo baxay ama Soomaaliya nuskeed ay noolay karto maanta dadka ku nool wajiyadooda daruuftan inay ka muuqato ma sax nabad la'aanta sabab u ah dadkan waa dadkii ayaga shaqaale loo ahaa lahaa ayaga guryahooda iyo beerahooda dadkii laga shaqay lahaaya tihiin oo dadka kale ay soo shaqo tagi lahaayeen ma ahan kuwa ayaga raashinka iyo cuntada loo qaybi lahaa inta waxa keenana waa daruufta iyo nabad darrada iyo amni darrada inay haysataa keenay ilaahay baa idinku dhaariyo dawladnimadiina garab istaaga wiilasha iyo gabdhaha naftooda u bixinaya inaad adinka mustaqbalkiina u hagaago oo adinku aad nolol heshiin kuwaas garab istaaga waa mahadsantiin waqti kale aan isku soo noqonaynaa aad iyo aad u mahadsantiin